warbixintan waxaa lagu xusay in lacag gaaraysa 1,350,400 oo dollar la isticmaalay iyadoo aanan laga warbixin sanadkii 2018 lacagtan ayaa ah dakhli ay qabteen hay-adaha dawladda qaarkood hay-adaha lagu xusay warbixintan ee lacagtaasi isticmaalay ayaa waxa ay kala yihiin wasaaradda duulista hawada hay-adda dambi baarista booliiska CID-da iyo hay-adda duulista rayidka iyo jaamacadda ummadda warbixintan waxaa kaloo lagu xusay in lacag gaaraysa 17,816 dollar oo uu midowga Yurub ku wareejiyay wasaaradda maaliyadda iyadoo xisaabtaasi ay ka maqan tahay 3,738,000 halka la soo gudbiyay oo kaliya 13,266,660 dollar 20 milyan oo dollar oo sidoo kale ay Sacuudiga siiyeen dawladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay warbixintan in qasnada dawladda ay soo gaartay oo kali ah 6,768,868 dollar halka 13,929,132 dollar oo taalay bangi dibadda ah aanan lagu soo darin warbixinta maaliyadeed hay-adda qaramada midoobay ee Umbus ayaa lagu sheegay warbixintan in qasnada wasaaradda maaliyadda ku soo shubtay 1,254,743 dollar lacagtaasi oo hay-adda ugu deeqday ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waxay warbixintu xustay in meel lagu sheegay oo kaliya 535,292 dollar halka aanan wax xisaab ah lagu haynin 719,451 dollar sidoo kale hanti dhowrka guud ayaa ku sheegay warbixintiisa in kaalmada dibadda uga timid Soomaaliya uu ku jiro jahawareer isagoo xusay in miisaaniyadda dawladda ee sanadkan laga dhimay 18,386,732 dollar taasi oo aanan lagu soo wareejin qasnada dhexe ee dawladda guud ahaan waxaa lagu sheegay warbixintan in deeqda guud ee dawladda federaalka sanadkii hore 2018 heshay ay ahayd 38,259,559 dollar halka qasnada dawladda lagu soo shubay oo kaliya 19,872,827 dollar sidoo kale warbixintu waxay xustay dhinaca hogaanka shuruucda hay-adaha amniga ee sanadkii 2018 wasaaradda gaashaandhigga ayaa lagu sheegay warbixinta in aysan u hoggaansamin sharciga maaliyadda iyadoo aanan soo gudbin xisaabaadkii 2018 waxaa lagu sheegay sidoo kale in wasaaradda gaashaandhigga ay ku guul daraysatay la xisaabtan iyo hufnaan maaliyadeed maamulka hantida dawladda iyo deymaha ayaa sidoo kale warbixinta waxaa lagu xusay in aysan lahayn xisaab ama tiro la raaci karo oo muuqata waxaa kaloo ay warbixinta hanti dhowrka lagu sheegay in 25 gaari oo wasaaraddu ay lahayd ay 12 kamida la tageen mas'uuliyiin hore oo wasaaradda soo maray halka 13 gaari oo wasaaradda gaashaandhiggu ay sheegtay inay leedahay 8 kamid ahna ay yihiin kuwa aan xabadu karin oo 6 kamida ay Mareykanku bixiyeen kaliya hadda laga hayo 7 dhammaan gaadiidkan ayay warbixintu xustay in aanan lagu diiwaan galin magaca wasaaradda gaashaandhigga baarayaasha xafiiska hanti dhowrka waxay xaqiijiyeen in ay soo arkeen 7 kamida gaadiidkaasi warbixintu waxaa kaloo ay muujisay sida wasaaradda maaliyadda aysan u gudan mas'uuliyadeedii maaliyadeed iyadoo lagu soo bandhigay inay jiraan lacago la bixiyay oo aysan cadeymo la socon iyo qaabka loo bixiyay intaba sidoo kale waxay warbixinta hanti dhowrku ay xustay in ay jiraan lacago laga wareejiyay meeshii hore loo qorsheeyay iyadoo aanan loo marin nidaamkii sharciga ahaa sidoo kale baarlamaanka Soomaaliya ayaa la sheegay in miisaaniyadiisa lafteeda loo isticmaalay qaab aan cadeymo wadan taasoo ka hor imaanaysa nidaamka maamulka maaliyadda ee saxda ah lacag dhan 362,000 oo dollar ayaa la sheegay in baarlamaanka uu u isticmaalay siyaabo aan la cadeyn sidoo kale lacaga socdaal oo la isticmaalay ayaan loo hayn iyaguna wax cadeymo ah warbixintan oo lagu daawacay bogga hanti dhowrka guud ayaa sidoo kale waxaa loo diray hay-adaha ugu sarreeya dawladda sida madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinaysay halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington haddaba daabacadda baaritaankan hay-adda dawladda ayaa Caashe Ibraahim Aadan waxay ka wareysatay oo wax ka weydiisay Professor Yaxya Sheekh Caamir oo ah dhaqaaliyahan wax ka dhiga jaamacadda Horn of Africa University saldhigiisuna yahay magaalada Muqdisho haatanse ku sugan magaalada Garowe wallahi waxaa ka soo baxay maamul xumo aad u weyn
iyo aqoon yari ku saabsan dadka maamulku inay la socon awoodda hanti dhowrka uu leeyahay asoo loo madax banaan shaqadiisa hanti dhowrku waxyaabahan oo dhan in lasoo marsiiyo oo baaritaan ku sameeyo waxaa u saamaxayo sharciga number 2 ee December 2016 iyo sharciga kale ee 1962 oo amendment lagu sameeyay 61 awood buuxda u leeyihiin marka iyagoo isticmaalaya international standard oo audit institution caalamka oo dhan inay baaraan waxaa ka soo baxaya marka niyad jab weyn oo ku imaanayo kuwa deeqda bixiya lafteeda maamulka dawladana niyad jab ku dhaqanaa hay-adihii lagu ammaanaya maamul wanaag inuu dhacay sanadkaasna waxuu ku abuuraa niyad jab inay ku aamini waayaan haddama hanti dhowrka reportkiisa oo saas sheegayo iyo sida kaas wuxuu ahay xisaab xirka 2018 oon hadda ku jirno siduu dhaqan doonaa marka ma kasii daraa doonaa report soo bixi doona muxuu dhaqanaa kaas hay-ado dhan oo hanti dhowr ku aadeynaya inaynan warbixin siin marka culays badan oo ku keeni doonaa maamulka hadda jiro iyagaa laga raba marka inay saxaan oo ay dib ula xisaabtamaan hanti dhowrka wuxuu ahayd hay-ad madax banaan waa inuu ku cadeeyo khaladka dhacay haddii khalad dhacay oo cadeyno dawladdaa laga rabaa marka inay iyaduna saxdo waa gartay marka saamaynta baaritaankan ku yeelan karo hay-adaha dawladda intee bay gaarsiisan tahay aaday u weyn tahay marka lama aamini karo hay-adihii dawladda ee maaliyadda oo lacagihii loo soo shubay heshiisya waxaa ku jira masalan aan laga diiwaan gelin hanti dhowrka ma dhici karta heshiis magale oo laga diiwaan gelin hanti dhowrka inuu waa khalad heshiis kastoo dawladda gasho weliba heshiisyada hadda socda kuwa batroolka oo kale waa in mid loo diiwaan gelin lama diiwaan gelin lacaga lasoo shubay oo maaliyadda iyo ay ku heshiiyeen iyo hay-adihii deeqbixiyaasha intii ay ahayd ka yara haddana miisaaniyad lagu muujiyo haddii lagu dhahanay dawladdaas waxaa ku heshiina sanadka inay intaas heshiisay 2 bilyan inay heshiisay miisaaniyadda 1 milyan keliya ama reportka maaliyadda ay ka muuqato su-aasha imaanaya waxay tahay milyanki kale xaguu ka baxay hanti dhowrka wuxuu sameynaa budget comparison actual iyo waxaa jiro qaarkoodna waxaa ugu yaa badan sidii world banking oo kale lacagti oo aan ku heshiin inuu la siiyey lacag ka badan inaan sheegano oo aan laga soo gashay ayaa isiiyey marka world bank waxaa la saxeexana inuu la siiyey 41 milyan 225,875 wasaaradda maaliyadana waxay sheegaya 49 milyan iyo jazab lacagtaas yaa isiiyey marka haddii ka tegaya su-aalo marka qaarna naaqusaa ku jira qaarna zaa-idaa ku jira zaa-id laftiisa waa dembi warbixintan waxaa ka muuqda yaxya dakhli badan oo meelo kala duwan ka soo galay waxaa ka muuqda dakhliga laga ururiyey gudaha dalka dakhli ay bixiyeen ama dhaqaale ay bixiyeen hay-adahan ama dawladahan saacida soomaaliya sida midowda yurub oo kale kaalmo uu bixiyey dawladda sacuudiga dhaqaalo badanaa ka muuqda marka dhaqaalahaas faraha badan leh ee warbixintan hadda lagu xusay iyo qaababka loo isticmaalay ay warbixintu sheegayso dhaawac intee leeg buu gaarsiin karaa dawladda ma laga yaabaa in hay-adihii ama dawladihii lacagta bixiyey inay iyaguna dib u eegaan dhaqaalihii ay bixiyeen iyo meelihii ay mareen waa khasab inay dib u eegaan marka hore waa joojinaya wixii socday kadibna waxay baarayaan lacagtooda meesha ay ku baxday sacuudiga 20 milyan la sheegaa budget kale waxaa ka muuqata 6 milyan iyo jidda keliya hay-adaha gudaha markaad fiirisid dawladda hawada iyo kale iyo CID-da oola ahayd hay-adda baaris lafteedu iyo hay-adda dawladda rayidka yaabka jira wuxuu yahay lacagay soo ururiyeen iyagaa dib u isticmaalay say ku dhici kartaa dukaankaaga ma aha meesha haddaad lacag soo ururisay waa inaad ku shubta akaamka dawladda codsi aad ugala baxda inaad la timaado lagu ogolaado budgetka ay ka muuqato madaxa budgetka aad kala baxayso iyo sababta aad ula baxayso lacada kadibna aad la baxdo laakiin waxay iisoo xarooda maanta isla berita anigaa isticmaalaya sistamka dawladeed ma aha marka laba cilad waa imaanaya in maamulka dawladdana dib loo soxo khalad u dhaca bini-aadanka oo dhan in loo soxo laakiin dawladihii deeqdana siinaayay sida EU-da ka muuqato Unbosta World Bank Turkiga dhammaan Maraykanka waxay naqanaya inay xisaabtamaan marka waxay arkaya reportka hanti dhowrka iyagana waxaa qabsanaya dadkoodii ay kasoo qaadeen cashuur bixiyaasha oo dhahayo war lacagta aad naga qaadeen ee aad ugu deeqdeen waddankaas lama isticmaalin intaasaa ka maqan lacagteena kuma bixinayna marka in ay corruption ku dhamaato caddayna waxay reference ka dhigaan ti hanti dhowrka wallahi arrintaan culays weyn keenaya wasaaradda gaashaandhigga markaad fiirisid waxyaabihii talyaaniga masar iyo turkiga ay keeneen iyo imaaraadka afrikaas wadan waxaa laleeyahay physically maba la arkinba qaarkood
qaarkood waxaa wasaaradda gaashaandhiga awood uma leh inay ku kantaroosho. tusaale ahaan midowda yurub oo kale waxaa dowladda soomaaliya ugu deeqay sida warbixinta ku xusan 17 milyan iyo dheeri hase ahaatee 13 milyan iyo waxoogaabaa qasnadii dowladda ku dhacay. sidoo kale dowladda sacuudiga oo kale sida warbixinta ku qoran 20 milyan oo dollar baa la leeyahay waxa ay siisay dowladda. hase ahaatee 6 milyan iyo jajab baa ku dhacay qasnadii dowladda. marka si dowladda Soomaaliyeed ay u cadayso halkay iska dhaafsiisan tahay xisaabtani ma looga fadhiyaa inay cadayso wixii dhacay. dabcan waa inay cadeeyaan khalad waa dhici karaa. dowladdu waa inay cadaysaa marka lacagta farqiga intaas leeyahay u dhexeeya from 17 to 13 xaguu ku maqan yahay. ma riboorkii hantidhowrka loo soo gudbin ma lacag kale meel kale ku baxda lama oga. sacuudiga waaba lacag aada u weyn ba 20 milyan ilaa 6 milyan difference weyn u dhexeeya. dowladda ilaa laga suga marka inay saxdo ama dowladda ilaa cadisho marka ceebta halkaas oo kale ay gaarto ama wasaaradaha iyo shaksiyaadka ku shaqo lahay ay dembiga ku eegtaa oo lagu maxkamadeeya hantida haddii wax ka nool yihiin dib looga soo celiyaa. ila dowladda oo dhan ma gelin dembiga, wasaarado gaara ayaa la magacaabay, wasaaradoo dhan hadda lama sheegin. kaasi waxa uu ahaa Professor Yaxye Sheekh Caamir oo dhaqaaliyan wax ka dhigay Jaamacadda Horn of Africa University waxaana isagoo jooga magaalada Garowe oo khadka telefoonka